badhasaabka gobolka Sanaag maayirka magaalada Ceeri Gaabo madaxda ciidamada bilayska mas'uuliyiinta wasaaradda caafimaadka gobolka Sanaag uqaal waayeel iyo waxgarad kale ayaa maanta waxa ay ka qayb galeen dhagax dhigga dhisme cusbitaal casri ah oo ka koobnaan doona qaybo badan oo bukaanada kala duwan lagu dabiibo kaasoo shirkadda ganacsiga beeyada Asli Maydi maalgelinayso isla markaana ay ka hirgelinayso magaalada Ceeri Gaabo. Dhismaha cusbitaalkan cusub ayaa sida ay sheegeen noqon doona mid casri ah oo aan dhigiisu hore uga jirin gobolka Sanaag kaasoo ay fulinayso shirkadda dhismaha ee Daryeel Construction ayaa waxa munaasabadii dhagax dhigga dhismahan ugu horeynba ka hadlay mas'uul ka tirsan shirkadda Daryeel ee dhismaha fulinaysa mas'uuliyiinta wasaaradda caafimaadka gobolka Sanaag taliye ku-xigeenka qaybta bilayska gobolka Sanaag iyo uqaal waxaanu dhagax dhigaynaa Amel General Hospital waa cusbitaalkii koobaad ee noociisa ee private ee dhammaan adeegyadii cusbitaal caalami ah lahaay u dhameystiran yihiin maanta naga dhagax dhigo Ceeri Gaabo gobolka Sanaag. Cusbitaalka waxa maalgelisay shirkadda Asli Maydi iyo mulkiilaha Barkhad Jibriil Xasan waxa dhisaysa Daryeel Construction Company waa cusbitaal u qalabeysan ama noo habeeyay ama noo shaqadeeyay cusbitaal caalami ah oo dhammaan adeegyadii cusbitaal caalami lahaay oo dhammaan leh runtii aan rajaynayo wadadii dheerayd dadka reer Ceeri Gaabo ama reer Sanaag u mari jireen gobolada galbeedka inay kaga raysan doonaan wax weyn lagu soo kordhin doona hadii Ilaahay ka dhigo. Saaka shakhsiyan waxay tahay farxad aad iyo aad u ballaaran iyadoo duruufaha ku xeeran marka la eegayo gobolka Sanaag ee xagga baahida caafimaadka haddana qaybta dhimirka loo yaqaano maba jirinba marka saaka waxay tahay dilo weyn oo aad iyo aad u farxad badan waxaan mahad celinayaa shirkaddan ugu tala gashay waliba meesha bannaan buuxisay. Waxaan soo dhaweynayaa dhismahan ay samaysay shirkadda Asli Maydi ee ay u dhisayso dadka waala ama xanuunsanaya runtii waa arrin aan Ceeri Gaabo hore uga jirin oo muhiim ah mana filayo waxaan filayaa inay tahay tallaabooyin hore oo badan ay qaaday waan ka xusuusanahay gaariga ambalaaska ah ee degmada gudmo biyacas waxqabadkii ay shirkadaasi qabatay ka mid tahay sidoo kale gaariga booliiska ee degisla degmada maanta waxaanu aad ugu faraxsan tallaabada waxtar kale ee ay shirkadda Asli Maydi qaaday halka hoteelkii baa ku yaala waa hotel caalami ah waa mid gobolka ka dhina halkana dhakhtarkii oo dhameystiran baa laynooga wadaa barkhadna waxaan oran lahaa waxaad noogu yar dartaan dabdamiskii baa naga xune dabdamis gobolku u baahan yahay. Waxa isaguna halkaasi ka hadlay Siciid Jibriil Xasan oo ku hadlayay afka shirkadda Asli Maydi ee dhismaha cusbitaalkan maalgelinaysa. Maanta waxaanu dhagax dhigaynaa dhakhtarkii ugu casrisanaa oo ay fulinayso shirkadda Asli Maydi anigoo ku hadlaya afka shirkadda waxaan u mahad celinayaa cid kastoo ka qayb qaadatay oo gacan ka geysatay oo ka soo qayb gashay xafladdan. Shirkaddu waxyaabo badan bay qabatay halkan oo kaliya kama qaban waxay wax u qabatay beeyastada waxay wax u qabatay maamulada tuulooyinka waa arkaysano garadag waxa laga dhagax dhigay habeen dhaweyto checkpointiyadii waxa iyaguna dhankooda munaasabadaasi ka hadlay badhasaabka gobolka Sanaag iyo maayirka magaalada Ceeri Gaabo kuwaasoo shirkadda Asli Maydi ku amaanay doorka ay ka qaadato horumarinta gobolka Sanaag iyo guud ahaan dalkaba. Asli Maydi goobo badan ayaa mashaariicdoodu ka socdaan waxaan leeyahay dadweynaha reer Sanaag iyo kuwa reer Soomaaliland dhamaanba Asli Maydi waa shirkad ku dayasho leh hal lagu daydo. Cusbitaalka dhimirku uu ka maqnaa gobolka Sanaag Ilaahay baa keenay sababna waxa uu noqday Barkhad Jibriil Xasan oo ka madaxa shirkadda Asli Maydi aad iyo aad buu maadsan yahay isaga shirkadiisuba waxaan leenahay nin dhalinyaro weeye qurbuu ka yimi markii ganacsigu noqday faa'iido badan buu wadaa waxaan aad iyo aad ugu boorinayaa reer Ceeri Gaabo ama reer Sanaag. Ugu dambeyntiina mas'uuliyiinta shirkadda Asli Maydi iyo maamulka gobolka iyo degmada ayaa waxay halkaas si rasmi ah ugu wada dhagax dhigeen dhismaha cusbitaalkan oo laga dhisi doono duleedka galbeed ee magaalada Ceeri Gaabo. Waa Yuunus Sheekh Axmed Universal TV Ceeri Gaabo.